midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale ka shirayay arrimaha ka soo kordhay doorashada Soomaaliya iyadoona go'aan la filayo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lagu wadaa in maanta kulan xasaasi ah ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho kulankan oo ka dhacaya hotelka Jazeera ayaa lagu waramayaa inuu goordhow ka bilaaban doono halkaasi oo ay haatan ku sii qulqulayaan xubnaha musharaxiinta wararka ayaa sheegaya in kulankana diiradda lagu saarayo xaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay iyo waliba dooda ka taagan doorashada 2020 sidoo kale waxaa la filayaa in musharaxiinta mucaaradka ay horkacayaan madaxweynayaashii hore ee dalka iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre inay soo saaraan go'aano cusub oo la xiriira xaaladda dalka iyo doorashada Muqdisho ayaa maalmihii u dambeeyay martigelinaysay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ku qotama marxaladda adag ee kala guurka si kastaba shirkan cusub ee ay yeelanayaan musharaxiinta ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay Muqdisho lagu qabtay madasha iskaashiga Soomaaliya iyo waliba saaxiibada beesha caalamka oo khudbado kala duwan laga jeediyay kuwaasi loogu hadlayay arrimaha doorashada jahwareerka ee xilligan Muqdisho ka jira jawi noocee ah ayuu dalka gelin karaa waxa warbixintan ku eegaysa wariyaheena Shukri Caabi Cabdi waxaa muuqda walaac badan oo laga muujinayo habkay wax u socdaan ee labada dhinac musharaxiinta mucaaradka iyo dawladda Soomaaliya oo wali dhagaha ka fureysanaysa dhaliilaha iyo baaqyada kaga imaanaya dhanka mucaaradka ee ku aadan gudiyada doorashooyinka iyo habkay wax u wado dhinaca kale waxaa jira laba gudi doorasho oo ay kala magacaawdeen labada dhinac musharaxiintu waxa ay ku dhawaaqeen gudi ay ugu magac dareen gudiga badbaadada doorashooyinka qaran gudigaasi oo doortay gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn sidoo kale gudiga lagu muransan yahay ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka ay diidan yihiin musharaxiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay dawladdu magacaawda ayaa iyana Muqdisho ku doortay gudoon si howlahooda ay u sii wataan gudigan ayaana ku xareysan hotel ku yaala Muqdisho waxaana ka maqan xubnihii heer dawlad goboleed ee maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaa gudoomiyaha gudiga loo doortay Cabdulaahi Abiy Nuur halka ku-xigeenkiisana loo doortay Maxamed Ibraahim Cabdulaahi Abiy Nuur gudoomiyaha cusub ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ee dawladdu ay magacaawday sidoo kalena khilaaf badan uu ka taagan yahay ayaa sheegay in si cadaalad ah ay u shaqeyn doonaan haddaba gudiyadan doorasho is barbar socda ma abuuri karaan kala qaybsanaan dalka uu galo waxaa su'aashaasi hordhignay falanqeeye dhinaca arrimaha siyaasadda Maxamuud Ibraahim Cumar marka runtii soo bariyaca isaga ay jiro dhinaca ka wadaan madaxda musharaxiinta hotel Jazeera fadhigoodu yahay dhinacna ay ka wado dawladda federaalka ah jiraysa xaaladda Soomaaliya oo bariyahan dambaba laga dareemayo kacsanaan siyaasadeed waxaana cabsi weyn ee bulshada ka qabaan in mar kale dalka uu isqabqabsi iyo dagaalo iyo dib u dhac weyn uu ku dhaco ismaanaafkan isaga ah iyo labada gudi ee isbarbaryaacay ee la dhisayna waxay khalkhal amni iyo mid siyaasadeed gelisay dalka waxayna bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan gaar ahaan waxay aad cabsi uga qabaan in dalka uu uu ka dhaco dagaal sokeeye taas iyada ana waxay keenaysaa in kalsoonidii lagu qabay iyo jacaylkii loo qabay dawladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo in bulshada qaarkood ay meesha ka baxdo maxaa yeelay waxaa loo baahnaa doorasho loo wada dhan yahay inuu qabto qeyladaanta doorashada waa mid isdaba joog ah oo dhan waliba ka soo yeeraysa gudaha iyo dibadda beesha caalamka oo iyana dhankeeda jahwareerka kaga jirta waxa ay marka ku xigta fariimo iyo hadallo ku aadan xal u helidda khilaafka iyo kala qaybsanaanta u diraysa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya isku haya siyaasiyiinta iyo musharaxiinta mucaaradka ahi xilligan waa kuwa Muqdisho ku soo ururay midna uusan banaanka uga maqnayn safiirka UK u fadhiya Soomaaliya oo kamid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa isla mar uu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya iyo khilaafka iyo kala qaybsanaanta sii xoogeysanaysa ee haatan ka jirta Soomaaliya waxa uu yiri ama uu ku tusaaleeyay waxaan aqriyay buu ka hadlaya dhibaatada iyo qalalaasaha balse horay uma fahmin ilaa aan ka imaaday Soomaaliya jadwalkii doorasho ee madaxda heer federaal iyo heer dawlad goboleed
ay ku heshiiyeen iyo habraacii doorashada ma aha kuwa habkii loo go'aamiyey u dhaqan galay. maamuladii Puntland iyo Jubbaland lagama hayo gudiyadii oo dhameystiran. Axmed Madoobe waxa uu ku doodayaa in doorasho ka dhacda Jubbaland ay ku xiran tahay geedo oo gacantiisa soo gasha. aan idin weydiiyo markay Puntland doorashada labada meelood ku qabato ay galmudug qabato ee Hirshabeelle qabato ee Koonfur Galbeed qabato Jubbaland doorashada waxay ku qabanaysaa hal meel meelasha kalena ciidan ay dawladdu u dirtay yaa loo dirayaa qabanaya. waxaan rabaa madaxweyne ra'iisul wasaare adiga iyo madaxweynahaaga iyo wasiir ku-xigeenka intaad isku noqotaan hal la qeexo Jubbaland waxay meesha wax ku qabanayso gobolka Galmudug Jubbaland baa mise maaha xaq ma u leeyahay maamulka Jubbaland inuu qabto doorashada ka dhacaysa gobolka Gedo mise dawladda federaalkiihi qoraal bay soo saaraysaa ay leedahay gobolka Gedo waanu la wareegnay iyagoo sababeynaya sababta uu la wareegay. waqtigu waa mid isa sii guraya. xilliga dawladda u haray waa maalmo fara ku tiris ah ilaa iyo hadda lagama hayo xukuumadda Soomaaliya hab la isku raacsan yahay doorashaduna ay ku dhici karto. jahwareerka ka jira hoteelada ay labada dhinac ku shirayaan iyo jawaabaha ka soo baxaya jabi noocee ah ayay doorashadu ka dhigi karaan waa su'aasha qof waliba uu isweydiinayo. Puntland ayaa awood ciidan u adeegsanaysa dadka diidaya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga. waxaa faahfaahinaya warkan wariyaheena Aweys Bashiir. Qaasim Maxamed Cabdi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in cidii uu hoggaansami weydo amarka wasaaradda maaliyadda ee Puntland iyo kan maamulka gobolka Nugaal ee la xiriira xirnaanshaha xarumaha ganacsiga magaalada Garowe iyo deegaanada maamulka Puntland laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. 4 saac wixii ka dambeeyay ayaa waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin inay xirnaadaan goobaha ganacsiga ayna booqan doonaan cidii waqtigaas ka dambeeyay laga waayana ay maxkamad la tiigsan doonaan kala noqon doonaan shatiyada ganacsiga. waxa uu sheegay in arrinkaani loogu gon leeyahay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga in dib u soo laabto maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay uu xakad uu ku yimid isticmaalka lacagtaasi saameyn xooggan ay ku yeelatay dadka ku nool deegaanada maamulka Puntland hab u badnaatay dadka danyarta ah. markii saaka shaqada aan bilaabayay waxaan amar ku bixiyay meheradii 4 saac kadib xiran meheradaha dhammaan horta in la furo 4 saac ugu damayn markii dadku waa iska soo gurigiiba iska jiraan gabdhaha u badan dadka caruurta wax soo siiyaan dadku cabaar buu soo magaalada ku biyaha ku dameeya cabashadaas markii ay soo gudbiyeen dawladda dhexe way ka soo jawaabtay si muwaadiniinimo oo shacabkeeda iyo dadkeeda ay ku soo celisay jawaab. reedkii goro waxa lagu soo celiyay dollarka inuu san dhaafin 34 oo gacanta dama lacagtan shirkadaha elektarooniga ah ay diraan oo iyaduna sidoo kale ka qayb qaadanaysay iyadana waxa leeyahay $1.1 wixii loo gaaro laguma diri karo sahalka iyadana dawladdu taasay ka gaartay. lacagta Soomaaliga ah oo shilin Soomaaliga oo la diiday oo la socodsiin waayana iyadana dawladdu waxay ka soo celisay dhammaan dawladaha hoose oo Puntland inay ku qaadaan cashuurta shilinka Soomaaliga. arrinta ayaa sababtay marka inaanu nimaadno oo u sheegno fariintii dawladda iyo go'aankii dawladdu gaartay inaan dadweynaha ku soo celino meel fagaaraha uga sheegno meherad walba dul istaagno suuqyada iyo goobaha ganacsiga aanu tagno dadweynaha ganacsatada iyo dadweynaha kale aan u baahino arrintaasna aan ka wada hadlo iyaguna waa naga aqbaleen. hadda saa u jeedidba waxaan taaganahay suuqii ugu weynaa oo fadhixun dhammaan albaabadii ganacsiga oo dhan waa furan yihiin injiidu sidoo kale weeye dhammaan magaalada maanta ganacsigeedii waa isku socdaa waa furan yahay shacabkii iyo dawladdii waa isfahmeen waa isla jaan qaadeen amaamuurtii dawladdana way fulinayaan waana fuliyeen. inta badan goobaha ganacsiga magaalada Garowe iyo Boosaaso oo ah meelaha ugu ganacsiga waaweyn ee Puntland ayaa waxa ay ahaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay kuwa xidhan kadib markii ay aad u yaraatay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah. saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM ayaa la weeraray iyadoona faahfaahino ay ka soo baxayaan weerarkaasi. waxaa faahfaahinaya warkan wariyaheena Cabdiqaadir Jakarta.
dagaal ayaa ciidamo ka tirsan kuwa amisom gaar ahaan kuwa uganda iyo al-shabaab wax uu ku dhex maray deegaanka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ee weerar ku qaadeen saldhig ciidamada uganda ku leeyihiin deegaanka janaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo dhowr saacadood ah dadka deegaanka janaale qaarkood ayaa waxa ay sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta isku adeegsanayeen ciidamada amisom iyo al-shabaab balse aysan caddayn karin khasaaraha ka dhashay maadaama dadka shacabka ah aysan tegi karin inta badan goobaha lagu dagaalamo islamarkaana ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa amisom oo dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka janaale ayaa waxa ay sheegeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ka hortageen weerarka kaga yimid dhinaca al-shabaab ha yeeshee aysan bixin faahfaahin intaas ka dheer dagaalka ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay uu dagaal ku dhex maray deegaanka Hosingow ee gobolka Jubbada Hoose ciidamo Kenya ah oo ka tirsan amisom iyo dagaalamayaasha ururka al-shabaab maxkamadda sare ee Puntland ayaa mudeysay kiiska xildhibaanadii xasaanada laga qaaday waxaa ka waramaysa warkan wariyahayna Xamdi Mahadiiriye maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegay in ay dhawaan bilaabi doonto dhageysiga kiiska la xiriira xildhibaanada xubnaha golaha wakiilada Puntland ay xasaanada ka qaadeen wararka la helay waxa ay sheegayaan in maxkamadda sare ay bilaabi doonto dhageysiga kiiska la xiriira saxaanshaha xilka xayuumintii lagu sameeyay 8 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland 10 Sebtembar oo ku beegneed Khamiistii soo socotay sida lagu sheegay warqad ka soo baxday maxkamadda sare ee Puntland xildhibaanada xasaanada ee golaha wakiilada Puntland ka qaadeen 3 bishan ayaa la sheegay in ay dacwad u gudbiyeen maxkamadda sare ee Puntland isla markaana dhawaan maxkamaddu ay bilaabi doonto dhageysiga kiiskaasi xildhibaanada xasaanada laga qaaday qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in ay go'aankaas u ahaa mid sharci darro ah isla markaana lagu difaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ay mooshin ka wadeen xildhibaanada xasaanada laga qaaday ee kiiskan dacwadda gudbiyay ayaa la dhageysan doonaa waxayna magacyadooda kala yihiin Abdi Jamaal Cismaan Maxamed Saleebaan Faarax Ciise Cabdiqani Abshir Jaamac Surato iyo waliba Muuse Saciid Xasan Jabsade Maxamuud Maxamed Barre Cabdicasiis Saciid Maxamuud iyo waliba Maxamuud Axmed Caalim ninka ganacsada dhulka ayaa lagu dilay magaalada Dhuusamareeb iyadoona warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan dilka ninkaasi waxaa ka waramaya warkan wariyaheena Cali Xasan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa waxa ay magaalada Dhuusamareeb ka wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan maleeshiyad hubeysan oo maanta nin halkaas caanka ahaa ku dilay magaalada Dhuusamareeb dilka ninka oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Caabi ayaa yimid kadib markii israasaaseen ay dhexmartay laba maleeshiyo kuwaas oo isku haystay isqabqabsi la xiriiray arrimo dhul magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn waxaa maanta looga dareemay israasaaseenta ka dhacday oo uu ku geeriyooday nin ka mid ahaa dadka dhulalka ka gada waxaana socda baaritaano lagu baadigoobayo maleeshiyaadkii dilka geystay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo wasiirka amniga maamulkaasi Axmed Macalin Fiqi ayaa kal hore waxa ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin dagaal beeleedyada salka ku haya isqabqabsiga dhulka dab khasaaro nafeed geystay ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada Jigjiga waxaa faahfaahinaya warkan wariyaheena Maxamed Bootaan dabkan oo geystay khasaare isku jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu maanta ka kacay suuq ku yaala xaafadda 7aad ee magaalada Jigjiga gaar ahaan suuqa cusub ee loo yaqaan Taiwanka goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dabka mar hore hal dukaan uu ka bilowday balse markii dambe uu ku faafay goobo ganacsi oo kale waxaana uu sababay geerida hal qof oo ganacsada ahaa iyo gubashada hanti fara badan xubno ka tirsan laamaha amniga dowladda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida Ibraahim Cusmaan Faarax iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jigjiga ayaa tagay suuqa dabka uu ka kacay iyaga oo ku guuleystay inay damiyaan mas'uuliyiinta laamaha amniga ee dowladda deegaanka ayaa waxay sheegeen inuu jiro dad ku dhaawacmay dabka kuwaas oo la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga si halkaas loogu daweeyo sidoo kalena ay wadaan baaritaano la xiriira sababta keentay dabka dhowr jeer ayaa sidaan oo kale uu dabka ka kacay isla markaana geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed
waxaana ka kacay suuq ku yaala magaalada Jigjiga waxaana mas'uuliyiinta maamulka ay sheegeen inay baaris ku sameyn doonaan sababaha dabkaasi uu mar walba suuqa ugu kaco